Assalaamu calaykum. Soo dhowaada asxaabay waa walaalkiina barqada maanta inii wada qiso kale oo aad u xanuun badan. Qisadaasna waxay ka dhacday dalka Nigeria, gaar ahaan caasimadii hore ee Lagos, inkastoo hadda caasimadii loo soo wareejiyey Abuja. Intaana qisadeena bilaabinna, nagu inaad muuqaalkan like saartid, channelka dadka cusubtaana subscribe-ka naga hilmaamin. Let's go. Sheekadeennu waxay ku dhacday gabar daayar, taasoo lagu magacaabayay Sara. Sara haddii wax yaraan kaga sheekayno, sannado ka hor waxaa geeriyooday aabbaheeda. Aabbaheedna sababta u geeriyooday sabab kale ma aysan ahayn ee kuwa tuuga ayaa habeenimo gurigiisa ku soo weeraray, kadibna meeshii ayay ku dileen lacagtiisa ayayna xilligaas ka qaateen. Keliya arrinka wasi xanuunka badneed Sara u sii raaca waxay ahayd in sanad markii arrinkaas ay ka soo wareegatay hooyada xitaa iyadana ay geeriyootay murugo darteed. Kadibna gabadhii waxaa soo kaxaystay adeerkeedna wuxuu u keenay eedadeed. Inkastoo iyaga laftirkooda ay nolol fiican aysan ku nooleen, haddana noloshii ayay si isaga dulqaadatay. Sara maadaama waxbarashadii ay dhammaysay waxay go'aan ku gaartay inay xilligan jaamacadda laakiin ma aysan awoodin xilligaasi. Kadibna go'aan waxay ku gaartay gabadhii yarta ahayd inay shaqayso, iyadoo xilligaad bilowday gelinna inay shaqaydo gelinna jaamacadda ay aado. wax badan ay gabadhii ay rafaaday. Ugu dambeyn waxa ay ku guulaysatay inay jaamacaddii soo dhammayso. Goortaysa jaamacaddii sidaas u soo dhammaysay ayay shahaadooyinkeeda soo qaadatay, CV-geedana diyaarsay. Kadibna waxay iska xaadirisay shirkadihii xilligaasi ku yaalla magaalada Lagos, iyadoo xilligaas rajaynaysay inay shaqo heli doonto. Nasiib darrase shirkado badan ayay cod u dirtay, mid walbana markay tagto waa ay ka soo diidayaan, oo qof walba waxa uu leeyahay maya gabadhaydiyey aniga wax shaqa kuma hayno, sababtoo shirkadahana dhamma waa ay buuxaan. Gabadhii marnaba isma aysan dhiibin. Maalin ayayna shirkad kale waxay u dirsatay codsi, laakiin xilligaasi meeshii waxay kula kulantay ninkii shirkadda iska lahay. Kadibna waxa uu ku yidhi gabadhaydii dhegayso shaqo ma raadinayso? Haa, aniga ayaa shaqo ku siinaya, laakiin waxaan u baahana waa inaa siisaa micnaha sheekadaadii iska fahan. Gabadhii markay intaasi maqasho way carootay, kadibna meeshii ayay ka soo carartay. Waxayna tiri iga tag balaayo shaqo beele, iyadoo murugaysan ayayna isaga soo tagtay. Kadibna waxay bilowday inay magaalada ku dhex wareegto, iyadoo xilligaas rajaynaysay in mar uun ay shaqo heli doonto. Inkastoo ay Sara shaqadaas haddana helin, go'aan waxay ku gaartay bal saaxiibadeed inay booqato. Saaxiibadeedna waa gabar kale oo iyadana lagu magacaabo Nicole haddii wax yaraan kaga sheekeeyo, gabadhani waa gabar ay isku mar jaamacad soo dhammeeyeen gabadhan kale ee Sara, weliba yaraantoodiina saaxiibaha ayay ahaayeen. Laakiin gabadhan Nicole markii iyada jaamacadda ay dhammaysay isma aysan dhibin, oo shaqo iyo waxaas ma aysan raadin, sababtoo waxay ogayd saaxiibadeeda nolosha ay ku jirto. Xitaa haddii ayda laftirkeeda ay magaalada inaysan wax shaqo ay soo helin, go'aanna iyada waxay ku gaartay inay fiirsato nimanka taajiriinta ayna la sheekaysato, iyagana wax walba ay ka bixiyaan, noloshaasi quruxda badanna iyada ay isaga noolaato. wax walba ay u baahantahana nimankaas ayay ka helayaan. Sara habeennimadii waxay soo aaday saaxiibadeeda, kadibna waxay uga sheekaysay in iyada weli shaqadii ay goobayso, ilaa haddana wax aysan gacanta ku hayn. Nicolette goorta intaasi maqasho saaxiibadeed waa ay ka naxday, waxayna tiri saaxiibey aad baan uga xumahay. Sidaas oo kale Sara waxay ugu dartay ninkii maanta waxa ay kala soo kulantay, iyo weliba kii ku yidhi jirkaada igu soo wareejiyey iyadoo ka diidayna ka soo carartay. Nicholas waa ay ka naxday, waxayna tiri saaxiibey midaan kuu sheego, haddii aad doonaysa shaqo fiican waa aniga tiimkayga inaad ku soo biirtaa, nimankan taajiriinta iska shukaanso, kadibna lacag badan ayaa ka helaysaa oo shaqo iyo rafaadka xitaa ma maraysid, marka noloshaas ku soo biir. Kadibna Sara waa ay ka diiday, waxay tiri saaxiibey ani waxaas ma doonayo, waxaan doonayaa wixii aan wax ka soo bartay inaan ku shaqaysto. Laakiin saaxiibadeed ayaa ku tiri ayaata waa ka sadda wax ka keen haddee, wax badan ayaana ordaysay ilaa haddana waxbaa ka soo saari weysay, marka waan ku baryaa walaalay waxaas iska daa murugada ee noloshaana quruxda badan ku soo dhawow. Sara si arrinkaasi gaashaanka iyo u daruurtay, waxayna tiri saaxiibeyga daa waxaas ma rabee. hadalkeeda intay ku caajistay ayayna kadib laabtoobkeeda ku jeesatay. Xilligaasna waxay isdaysay waa intaasoo aad waxashaa, iyadoo xilligaasi Facebook ku jirta baaritaanna samaynaysa ayaa si lama filaan indhaheedu waxay u soo qabteen xayisiinta ayayna sii fiirisay. Ugu dambeynna waxay ogaataba in cid ay u baahan yihiin gabar shaqaalaha oo guriga uga shaqaysa. gabadhii waa ay faraxday, kadibna waxay sii fiirisay kharashka ay xilligaasi bixinayeen. Nasiib darrase markay lacagtii eegto waxay ahayd lacag $150 una dhiganta dollar ahaan lacag adiga iska $100 ama $96 almost waa iska $100. Kadibna saaxiibadeedii arrinkii la wadaagtay, waxayna tiri saaxiibey shaqadan ayaan helay, ka waran haddii aan iska xaadiriyo, waxaa laga yaabaa shaqo kale in ayada aan ku sii sugtee. Laakiin Nicola arrinkaasi gaashaanka iyo u daruurtay, waxayna tiri saaxiibtii maxaa kugu dhacay, Marionos ama run ayaa kala hadlaysaa. Iyadina waxay tiri saaxiibey run ayaa kala hadlaya, tale shaqo kale ma haystii. Nicola arrinkaas way ka soo horjeesatay, Sarana ma aysan dhegaysan, isla markiiba way apply garaysay shaqadii ayayna apply garaysidoo xilligaas rajaynaysay in la soo aqbali doono. Laakiin saacad markay ka soo wareegatay gabadhii waa la soo aqbalay. xilligaasna waxaa loo soo diray adres waxaan lagu yiri
beri interviewga isku soo diyaari. Gabadhii markii intaasi maqasho waa ay faraxday. Saaxiibadeed iyana la wadaagtay laakiin saaxiibadeed waxay tiri, "Okay saaxiibey adiga haddaad doorato aniga kuma soo horjeesanaye. Guul ayaan kuu rajeynayaa iyo weliba shaqo wacan." Subaxiga markii la gaarana gabadhii waxay iska soo xaadirisay adreeskii loo soo diray. Adreeskii goortii sidaas u timidna waxay aragtay guri aad u weyn oo weliba aad u qurux badan. Ubaxyaduna geesaha uga yaalliin. Markii gabadhaani guriga aragtay waa ay la dhacday. Laakiin waxay tiri macquul maahan inaa gurigan shaqaalnimo u shaqaysiisay camal gabadha xilligaas waxa ay ka labalabaysay inay guriga gashay in kale. Laakiin isla markiiba waxa ay garaacday gambaleelkii. Kadibna marwadii ayaa xilligaasi bannaanka taagneed. Waa ay ka furtay gudaha iyana soo gelisay. Kadibna waxay tiri, "Waxaan u malaynayaa inaad tahay gabadhii shaqada soo codsatay ee Saara." Saara ayaana isla markii waxay ku tiri, "Haa maamo, anigu waa qofka soo codsaday." Kadibna gudaha ayaa loo sii gudbiyey. Waxaana la sii geeyey qolka fadhiga. Marwadii guriga iska lahayd ayaana xilligaas waxay ku tiri gabadheedii soo dhawow. Waxaan rajeynayaa shaqadan aad soo dalbatay inaad khibrad fiican aad u leedahay. Saara ayaana xilligaasi tiri, sanado badan ayaan shaqadani ka shaqaynayay. Weliba waxaan kaa hubaa inaana wax dhib ahna kuu keenin oo shaqada ayaan u baahanahay. Maamadii iyo weliba gabadhii interviewgooda si fiican ayuu ugu soo dhammaaday. Goortii sidaas ugu soo dhammaaday maamadii tiri, "Waxaan u baahanahay marka hore inaan caafimaad aan ku martid si aan kuu jeengareeyo." Saarana kama aysan diidin waa ay ka aqbashay. Maalinkii xigana waxaa la geeyey meeshii isbitaalka ahayd. Gabadhii ayaana baaritaan lagu sameeyey. Ugu dambeynna waxaan xaqiijiyey gabadha inay caafimaad qabto. Resultigaas markuu soo baxana Saara aad bay ugu faraxday. Kadibna maamadii ayay ku soo laabatay. Maamadii ayaana ku tiri, "Beri waa soo shaqo geli kartaa." Gabadhii xilligaasi faraxsan ayaa soo baxday. Saaxiibadeed Nicholas ayay xilligaas u timid. Kadibna waxay u sheegtay warka farxadda leh. Laakiin goortii Nicholas intaas ay maqashay ayay tiri saaxiibadiisi camal "Hadda ma waxaad doonaysaa adoo jaamacad soo baratay inaad maanta shaqadooda kugu horeysa ka dhigato guryaha inaad tirtirtid? In male haddii adiga aad dooratay shaqo wacan aan ku leeyahay gaba saaxiibey." Arrinkaasi laakiin kuma aysan farxin Saara iyo weliba sidii saaxiibadeed ula hadashay. Laakiin waxay tiri saaxiibey eber ayay dhaantaa. Waan rajeynayaa shaqadan shaqo kaloo ka fiican inaan heli doono. Marka ha ii qaban. Saaxiibadeedna waxay ku tiri, "Okay guul ayaan kuu rajeynayaa." Maalinkaas sidaas ayuu ku gudbay. Maalinkii xiga gabadhii waxay isku soo diyaarisay dhankaasi shaqadii. Toosna waxay u soo aaday gurigii. Goortaysa gurigiisaas u timid aad bay ula dhacday gurigan iyo weliba sida uu weyn yahay. Kadibna guriga ayay gudaha u soo gashay. Marwadii guriga xilligaa iska lahayd ayaana guriga ku soo dhaweysay. Waxayna tiri gabadhaydii, "Xilligan hadda waxaan rajeynayaa inaad diyaar u tahay maalinka ay kugu horreeyay shaqada inaad gashid." Saarana waxay tiri, "Diyaar iyo nusba hadda ayaan diyaar ku ahay shaqada inaan galo." Marwadii ayaana xilligaasi waxay bilowday shaqaalaha kale inay kala barto. Maadaama gurigan uu yahay guri aad u weyn, waxaa ka shaqeeya shaqaale fara badan. Ugu horreyn waxay barteen ninka cunto kariyaha kaasoo lagu magacaabayay Jack. Sidaasoo kale waxay bartay gabar kale oo iyadana shaqaale ka ah iyadana sidaasoo kale qaabilsan dhinaca dhaqitaanka. Dhammaan shaqaalihii ayaa halkaas lagu wada baray. Waxaa la yidhi gurigu waa gurigaadiiye minninka ku soo dhawow leeldhaano. Sidaasoo kale waxaa soo dhaweysay maamadii hore aan kuu sheegay taasoo ahayd Grace. Waxayna qaabilsan dhinaca nadaafadda. Waxayna tiri gabadheedii, "Waxaan rajeynayaa gurigan si raaxo leh inaad ugu noolaa doontid. Hana xishoon. Minanku waa minankaadii iska soo dhawow." Saarana waa ay ku faraxday kadibna shaqadeedii ayay gashay. Sidaasoo kale waxaa la soo baray guriga iyo weliba intii uu ka kooban yahay. Gabadhiina shaqadeedii ayay sidaas u gashay. Waxayna bilowday shaqadeed inay si fiican uga soo baxdo. Oo inta badan iyadu waxay samayn jirtay dhanka nadaafadda. Halkaas ayayna inta badan ka shaqayn jirtay. Laakiin Saara markii asbuuc guriga ka shaqaynaysay ayay maalin waxay isweydiisay oo kaalay. Gurigan ma hal marwo oo keliya ayaa ku nool. Aawayda waxnayna uma joogaan miya? Xilligaas ayada isweydiinaysay ayay maalin waxay u tagtay gabar ka mid a gabdhihii ka shaqaynayay. Kadibna waxay weydiisay gurigan marwada kaligeed inay ku nooshahay. Gabadhii ayaana xilligaasi ku tiri kaligeed maahane ninkeeda ayaa jooga. Kadibna waxay tiri laakiin ninkeeda ma arkin maxaa ku dhacay aaway. Laakiin waxay ku tiri ninkeeda waa nin inta badan ganacsi u baxaa. Laakiin waxaan rajeynayaa asbuucan soo socda inuu imaan doono. Markaas ayaana la kulmaysaa. Saarana kama aysan diidin waa ay ka aqbashay waxayna ku tiri, "Okay saaxiibey bal waan arki doonaa." Markii asbuucii ka soo wareegatay ayaa maalin maalmaha ka mid a shaqaalihii bilaabeen gurigooda inay hagaajiyaan. Iyadana xilligaas waa ay yaabaneed. Waxay kadibna gurigii waxaa yimid ninkii xilligaas la filayay. Saara markay ninkan indhaha ku dhigto waa ay naxday. Sababtoo xasuus dheer ayay gashay. Ninkii ayayna isla markiiba gacanta u soo taagay iyadana waa ay ka aqbashay. Laakiin xilligaas cabsi ayay dareemaysay. Haddaba maxay isleedahay gabadha xilligaas waa ay ku soo dhaceen. Wax kale kuma ay soo dhicin. Ninka xilligaa wejigiisa waxaa ku yilay calaamadaasna waxay xasuus dib u gashay xilligii aabbaheed uu dhimanayay. Aabbaheed waxaan hore kugu soo sheegnay in niman burcabadeed ay dileen gurigiisana u soo dhaceen hantina ay ka dhaceen. Saara xilligaas guriga waa ay ku sugneed. Laakiin qolkeeda ayay ku jirtay. Ninka xilligaas dhibaatada u geystana wuxuu lahaa isla calaamadan oo kale. Saara xilligaas ninka gacanta ayuu ka hayay. Kadibna ilmo ayaa ka imaatay.
marwada ayaan xilligaas ku tiri maxaa kugu dhacay gabadhaydu ma fiican tahay iyadana waxay tiri haa mar wax walba ay fiican yihiin shaqadii markay maalinkaasi dhammaysay ayaa habeenkii guriga isaga soo laabatay kadibna waxay bilowday inay meeshii sagoyso xilligaasi guriga waxaa ku sugnayd saaxiibadeeda taasoo aad Nicole waa ay yaabtay saaxiibadeeda oo xilligaasi oynaysa kadibna way u timid waxayna tiri saaxiibi hadda si camal leh maxaa kugu dhacay waxaad noo oynaysaa ma wax khaldan ayaa lagu soo sameeyey saara oo xilligaasi limada ka daadanaysa ayaana bilowday inay hadalka jarjartay xilligaasi dhahaysa waxaan la kulmay ninkii ashi tiri ninka ka hadlaysa waa ninkee markaasay tiri waxaan la kulmay ninkii aabbahayga dilay sababtoo ah xilligii aabbahayga la dilay aniga guriga ayaan ku jiray weliba sariirta ayaan ku hoos dhumanayay ninkii dhibaatada u geystay xilligaasi calaamadii uu lahay laftirkeed ayaana waxaan gurigaan ku soo arkay gurigaan ka shaqeeyo oodhay gabadhi intaasi maqashay Nicholas way yaabtay waxayna tiri saaxiibey hadda eedayntaas waa eedayn weyne laga yaabo waxaynay saxan yihiin saara ayaana tiri war anigu waa kaa ogaa 100% ninkaas ayaana aabbahayga dilay kadibna saaxiibadii ayaa ku tiri okay maxaa ku cadaynaysaa hadde in adiga ninkaas uu yahay ninkii aabbaha dilay isla markiina qolka ayay gashay waxayna bilowday sanduuq yar oo alaabaha ay ku dhex xiriir jirtay inay isla markay daf soo tiraado waxayna tiri iyadoo xilligaas warqadihii meesha ka soo saartay yiri waa kan walaalay sawirkan aniga ayaan sawiray waxaana doonayay xilligaasi inaan mar walba aan ku soo xasuusto xilligii aabbahayga la dilayay marka waa inaan fiirisaa Nicola ayaana xilligaasi bilowday inay warqadihii fiiriso haddana sida ay sheegaysa gabadhu waa ay saxsan tahay kadibna saaxiibadii ay ku soo jeesatay waxayna tiri saaxiibey hadda wax fiican ayaan samayn karnaa oo arrinka lagu xalli karo saara oo yaaban ayaana tiri maxaa ka wadaa anigu waxaan u baahanahay ninkaas in cadaaladda la keeno saara iyo Nicola ayaan xilligaas ku tiri saaxiibe maxaa kaa qaldan fursad fiican ayaa heshay hadda ayuu ilaahay albaabo kuwa kuu furay marka waa inaad ka faa'iidaysataa saara oo xilligaas aana fahmin ayaana tiri walaalay hadalkii jilci markaasay waxay ku tiri waran ninka hadda dhibaatadaas ku geystay haddii lacag aan ka qaadano markaas tir lacagta kaaleysa maxay tahay anigu waxaan rabaa aabbay wixii lagu sameeyey in looga saaro markii daa walaalay laakiin Nicola way ka diiday waxayna tiri dhegeyso aniga ayaa qorshe fiican haya aniga kaliya warsuga ninkaasna wax walba uu sameeyey aabbaha u geystana aniga ayaa xalinaya saara kama aysan diidin isla markiina way iska aqbashay waxayna tiri okay saaxiibay adiga ayaan ku daayay Nicola ayaana markaasi bilowday howlgalkeedii ballaarnay waxayna bilowday ninkani shirkadii uu ka shaqeynayay baaritaan ku samayso ugu dambeyntii waxay soo heshay ninkani shirkadaha uu iska leeyahay kadibna waxay bilowday nambaradiisa iyo weliba xogtiisa inay xilligaas raadiso nasiib darase nambarkiisa khaaska xilligaas ma aysan helin kadibna habeenka ayay saaxiibadeed u timid waxayna tiri saaxiibay dhegeysa xalab ayaan kaa rabaa aniga ninkii baaritaan waan ku sameeyey laakiin nambarkiisa khaaska ma aanan helin adiga ayaa gurigiisa ka shaqeeye ii soo baar waa inay keentaa saara ayaana tiri beriyan waxaan soo weydiinayaa kan darawalka u ah isaga ayaana ka soo helayaa kadibna Nicola ayaa ku tiri okay saaxiibay shaqo wacan subaxiga markii la gaaray gabadhii saara shaqadii ay iska soo xiriirisay kadibna ninkii waardiyaha ee si xilliga u shaqeynayay ay meesha kula kulantay waxayna bilowday ninkii xilligaas inay u soo dhawaato waxayna tiri mudane xaaladda ka hor ma fiican tahay isagiina waa uu ka qaaday kadibna waxay tiri saaxiib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mudanaha inta badan guriga ma joogo xaguu ku mashquulsan yahay inta badan isagana wuxuu ku yidhi shaqadiisa ayuu inta badan ku mashquulsan yahay saara oo xilligaas raadinaysay nambarka u qaatay iyo waxay ku tiri ani waxaan doonayaa mudanaha inaan la kulme ee nambarkiisa ma igu caawi kartaa sababtoo hadi jeer ma rabo inaan dhigo ninkiina kama uusan diidin xilligaasi oo uu ka aqbalay wuxuuna ku yidhi okay dhib ma leh aniga ayaa ku siinaya ninkii ayaana isla markii lambarkay farta ka saaray saarna markayna magsaad u heshay waa ay faraxday wayna u mahad celisay isagana waxa uu yidhi waa isku leenahay kadibna shaqadii ayay dib isaga laabatay waxayna bilowday guriga inay ka shaqayso hortaysa shaqadii iska soo dhammaystay galabnimadii waa ay soo baxday xafadeeda ayayna ku soo laabatay saaxiibadeed ayay nambarkii farta ka saartay saaxiibadii gootay nambarka sidaas u heshana isma aysan dhibina ninka ay daaragta wacday alliga horta magaciisa nii sheego waa Anthony hortiis waxaas ayay tiri Anthony haye iska waran markaasuu yidhi yaa waa qofkii la hadlayaa markaasi waxay ku tiri iska daa waxa kula hadlaye waxaan kaa rabnaa ma ogta uu falka adigaa samaysay weliba sannado ka hor markaasuu yidhi falka ka hadlaysa maxaa waaye markaasay tiri ninka adiga aad dishay weliba xilligaasi aad dishay saacadduna intaasay ku beegneed hortoos Anthony maqla waa uu naxay waxayna ku yidhi maxaad u baahan tahay iyadiina xilligaas waxay tiri waxaan u baahanahay lacag 1 milyan markaasuu wuxuu ku yidhi oo kaalay ma waxaad doonaysaa aniga inaad iskaam igu samaysid taas kaama yeelayo waxaan caddaynay in aniga falkaas aan geystay iyadiina wax walba ay u sharaxdiyey weliba xilliga meesha uu ku dilayay calaamad uu lahay ninka markuu intaasi maqlo waa uu naxay kadibna wuxuu ku yidhi okay maxaa iga rabtaa si aan arrinkana u dejiyo iyadiina waxay tiri dhegeyso haddii aan lacagtaan kaa rabo aadna isiinin booliska ayaa anigaan farta ka saarayaa adigana xabsiga ayaa lagu taxaabayaa
qaladkii aad geysatana ciqaabteeda sidaas ayaa ku maraysaa. Antony oo naxsan ayaana xilligaas ku yidhi, okay ha ka welwelin aniga ayaa lacagta kuu soo turayaa, ee meeshaan kugu soo turi lahaa ii soo sheega. Iyadiina waa ay ka aqbashay. Saara xilligaas waa ay dhegeysanaysa saaxiibadeed Nicola iyo weliba ninkay la hadlayso, waa ayna cabsanaysay. Kadibna warkii waa la soo gabagabeeyey. Nicola ayaan xilligaas ku tiri, saaxiibay aniga ninkani dhegeyso marka xigtana waxaan weydii doonaa lacag 5 milyan ah. Laakiin horta ugu horreyn waa inaan ka helnaa horta ugu horreyn halkaan milyan. Aan dib ugu laabano Antony isagoo aad u murugaysanayuuna gurigiisa ku laabtay. Kadibna wuxuu go'aan ku gaaray gabadha inuu lacagtii u soo diro, uuna u soo diray. Horta sidaas fariintii ugu soo dirana gabadhii yartayd ee Nicola lacagtii waa ay soo gaartay. Kadibna saaxiibadeed ayay ku soo dhahday waxayna tiri, saaxiibay dhegtiis qabo, lacagtii aan sugaynay gacanta ayaan ku dhignay. Hortayse lacagtii sidaas u haragtay Saara way aamini weysay. Nicola ayaana xilligaas ku tiri, saaxiibay aniga hore aan kugu sheegay. Tan kale waxaad dhihisay boolisaan sixira, boolisaan u geynaa. Maxaad ii boolis u geysanayay tiri saaxiibay. Ujeeda hadda ninkaas ayaa lacag wada dalanaynaa. La soco marka xigtana ninkan waxaan weydii doonaa lacag 5 milyan ah. Sababtoo ninkan waa nin maalqabeyna marka waan ka faa'iideysanaynaa. Saara oo yaaban ayaana ku tiri, okay saaxiibay waan arki doonaa. Waxaa ka Saara xilligaasi shaqadii guriga ma aysan joojin. Hawsha bilowda shaqadiina iska wadato. Ilaa maalin markay asbuuc arrinkaasi ka soo wareegatay. Saara sidii caadadeeda guriga ka shaqaynaysa weliba xilli quraac ay tahay. Ay ninkii waxay u keentay quraac. Xaaskiisa ayaana xilligaas la fadhiisay. Moobilkiisa ayaana xilligaas soo dhacay. Horta moobilkiisa u fiiriyay ayuu wuxuu arkay nambarka inuu yahay. Kadibna silent ayuu geliyay. Xaaskiisa loo fiiro xilligaas meel joogtay ayaana waxay tiri, yaa ku soo wacay jaceylkaygiiyo. Kadibna wuxuu yidhi, waa kuwa shaqada ay soo wacay marka iska daa isku dhibine. Markaas tiri saaxiib mubtaa maalmaha wejigaada xitaa maana bigine. Isagana waxa uu ku yidhi, haa wax walba waa ay wanaagsan yihiin. Maalmahan shaqada keliya ayaa igu culus. Marka waxba waa arrin ayuu ku yidhi. Iyadiina waxay ku tiri, okay dhib ma leh. Si hadday tahay waxba kama dhahay arrinkaaga. Bal wax yar horta aan kugu daro. Ninkan gabadhan oo qabo Antony iyadoo waa gabar looyarad ah. Kadibna ninkii markuu shaqadiisa uu soo dhamaystay, bannaanka ayuu u soo baxay isla markiina lambarka ayuu soo wacay wuxuuna yidhi, haya hadda maxaad iga baahanta maxaana ii soo wacday. Nicola isma isdhimin waxay ku tiri, saaxiibu lacag 5 milyan ilaahay ha kugu duway inaad iska bixisid. Markaasuu yidhi 5 milyan aa kaadaysa maxay tahay. Markaasay tiri hilmaamin inay xaaskaadu xitaa qaran tahay. Haddii arrinkan u sheegan adigana gacanta ayaa sidaas ugu jirtaa. Booliskana waa lagu tarxiilayaa. Haddaysan hayn lacagta waa inaad soo dirtaa. Antony oo murugaysanayaan isla markiiba wuxuu ku yidhi, okay diyaar waay aniga ayaa kuu soo diraya. Isoo ku baryay arrinkaana fashilka iga gaarsiin. Iyadiina waxay ku tiri saaxiibu dantaada waa aqaantaahe. Lacagtaas iga soo gaarsii. Isagana isla markiiba 5 milyan ayuu u soo diray. Habeennimadiina Saara iyo weliba Nicolana waxayda ay aadeen xilligaasna waxay bilaabeen cuntada Nigerianka uga carsan taas ah jollof rice inay halkaas ugu raaxaystaan. Waqti qurux badan ay ku soo qaataan. Lacagtiina sidaas ay ugu damaashadaan. Laakiin Saara laftirkeeda xilligaasi kuma aysan faraxsanin waxyaabahan ay samaynayaan. Inkastoo haddana xilligaas ay doonaysay in aabeed oo cadaalada helo. Dan mar walba gabadha Nicola ayaa mar walba dhinac u rixi jirtay. Ayna dhihi jirtay walaalay, fursadaana soo martaan ka faa'iidaysano. Lacagtan agtaada taalana waa isaga raaxaysanaynaa marka waxba u qaban. Maalin maalmaha ka mid ah gabadhii sidii yartahay caadiga ahayd. Iyadoo guriga ka shaqaynaysa ayaa marwada u timid. Taas waa marwadii qareenkaad kadibna waxay tiri gabadheedii hortaan ku weydiiyey. Wax barasho ma dhamaysay. Xilligaasna Saara wax walba ayay u sheegtay weliba inay jaamacad dhamaysay. Laakiin shaqo ay weysay. Markaas ayay ku tiri oo kale haddii jaamacad dhamaysay. Maxaa shaqo u raadsan weysay oo bangiyada uga raadsan weysay iyo meelaha ka soo dhamaysay. Gabadha ayaana ku tiri shaqo ugu wanaagsan waa waayay. Marka waa iska daayay si aan ayaana go'aansaday. Kadibna maamadii ayaa xilligaas ku tiri okay dhimala gabadheediyay. Shirkada ayaan ku dirayaa kadibna imtixaan ayaa u galaysaa. Sidaa darteedna shaqo ayaa helaysaa. Saara way ku farxday wayna u mahadcelisay. Habeennimadiina saaxiibadeed ayay arrinkii la wadaagtay. iyadoo ku tiri saaxiibey war khayr ayaan ku wada kaasoo aniga shaqa in barwada ii ballan qaaday imtixaanna keliya aan gelayo laakiin Nicola arrinkaas kuma aysan farxin waxayna tiri saaxiibey maxaa kaa qaldan hayta shaqada xilligan ka fakaraysid oogid miyaa meel bag inuu iska furan yahay cagtuna noo soo qulqulayso inta ay tiri waxaas isku mashquuline laakiin waxay tiri maya saaxiibey tan kale aan kugu daro barwada surtu waa marwo aad u wanaagsan sababtoo ah hadda ay shaqay raadinaysaa ka waran oo weliba gurigeeda ka shaqaynayay marka arrinkaas aan iska deyno laakiin Nicola arrinkaas kuma uusan farxad gelin ayna tiri okay saaxiibey bal waa arkaynaa waxay noqotabe anigii warsu waa arkaynaa tan kale Anthony warogadii waay ku siyaaday isagoo xilli walba fakarayay sidoo arrinkan uu ku xali lahay ayaa habeenadii ka mid ah xaaskiisa u timaaday taasoo tii qareenka ee Lovid waxayna ku tiri ninkeygiyo halmaana kumaana begin ma wax qaldan ayaa jira ma wax qaldan ayaa anigu kugu sameeyay waxaad murugaysan tahay isagana waxa uu ku yiri maya wax ma jiraan xaaladdu way degadaay marka waxba ha dhihin iyadina waxay tiri maya ninkii kumaana begin maalmahan arrin ayaa iga qarinaysa ii sheeg isagana xilligaas wuxuu bilaabay inuu ka qariyo
isagoo xilligaas u sheegay in dhankan iyo shaqada arrimo ay ku soo kordheen. Dhanka kale gabadhii yarta ahayd 2 asbuuc markii arrinkii ka soo wareegatay ayay maalin maalmaha ka mid ah waxay u tagtay qareenkii oo waxaan ka hadlayaa Nicola. Kadibna marwad ayay ku dacweysay xilligaasna waxay tidhi waxaan rabaa kiis inaa ii furtid. Kiiskaasna wax kale maahane aabbahay ayaa waxaa la dilay sannado ka hor. Weliba waxaan ku hayaa ninkii dhibaatada si geystay sawiradiisii weliba xogtiisa oo dhammaystiran ee ka waran marwa haddii aad ii raadisid. Marwadaas xilligaas loo dhiibayana waa Anthony xaaskiisa isla markiina waxay tidhi ka xabsan aniga ayaa baaritaan kugu samaynaya keliya waxaan kaaga baahanahay xogtii iyo weliba meesha uu falka xilligaasi ka dhacay. Nicolow oo xilligaas warbixintooda yeelaysay saaxiibadda Saara ay soo siisana waa ay ku dhoobtay iyo weliba wixii calaamadahay ayay farta ka saartay. Lovid oo xilligaas qareenkii ahaydna waxay ku tidhi ka xabsan aniga ayaa arrinkani soo xalinaya. Iyadana xilligaa wixii ka dambeeyey baaritaan ayay bilowday iyo weliba kiiskani xilligii la soo gudbiyey. Sidaasoo kale booliska ayay u tagtay baaritaan badan ayayna ka weydiisay xilligaasi iyo weliba xilliga falkaas u dhacay. Ugu dambeyntii gabadhii waxay ku guulaysatay xog dhammaystiran in halkaas ay ka soo hesho. Laakiin xilligaas waxay isweydiinaysay inay jiraan dad laga shakisan yahay. Faylalkii dadkii laga shakisanaa ayayna bilowday inay xilligaasi fiiriso. Laakiin xilligaas iyadoo baaritaanka ku jirta ayaa hal mar isheeda waxaa qabatay waxay aad uga naxday. Waarjeeraya adiga laftirkaada inaad fahantay qof kale maahane qofkaas indhaha ay ku dhigtay waxay ahayd ninkeeda. Waa ayna yaabtay waxayna tiri macquul maahan si camal ma ninkayga ayaa falkaasi geystay. iyadoo hal mar ay xilligaasi gabadhii Nicholas ay arrinkii wargelisay waxayna ku tiri mar uu iga raali noqo waxa falkan geysta waa soo helay. Laakiin Nicholas oo xilligaasi war ka dareentay ogaatayna inay wax walba ay caddiinaya waxay ku tiri mar waan ogahay ninkaada ayaa falkaasi geystay marka waa inaad war ka keentaa. gabadhii qareenka oo xilligaasi murugaysan ayaana guriga ku soo laabatay ninkeeda ayayna u timid waxayna tiri oo kaalay maxaad hore igu sheegi weysay nin dilaa in ahayd arrinkaas maxaad iga qarisay hadda ayaan u baahanahay warqadda fariinka tan kalena booliska ayaa arrinkaad u gudbinaya. Antonio murugaysan ayaa yidhi si xamale maxaadna ka hadlaysaa markaasi warkii oo dhan ay farta ka saartay weliba caddayntii ay soo heshay. kadibna ninka ayaa xilligaasi ku yidhi walaalay sidaad mooddo wax uma jiraan anigana falka wax luga kuma lihi laakiin aan wax kuu sharaxo. gabadhii qareenka oo xilligaasi diiday ayaana tiri ma doonaya inaan hadalkaada dhegaysto sababtoo wax walba iska caddihiin ninka maskiinkan adiga ayaa dishay oo waxay rabtaa hantidiisiina dhacdid marka sidaas oo ay tahay warqadayda fariinka ayaan ku kaysanayaa waa inaan adiga kala tagnaa sababta aan ima doonayo falka inaan wax ku soo dhaco. Antonio murugaysan ayaa isku dayay xaaskiisa inuu qanciyo laakiinse waa uu ku guuldaraystay sababtoo gabadhaasi xilligaasi caddayn iyo wax walba waa ay gudatay iyadoo tiri caddayntii waa tan. sharaxadda kale oo xilligaas aniga u baahanahay maxay tahay markaan ku barya igada saaxiibo buuqa booliska ayaan arrinkani ku wargelinayaa. dhan kale aan aadno Nicola iyo saaxiibadeeda Saara meesha ayuu ku sheekaysanaya. Saara waxay ku tiri saaxiibay gabadha masaakiinta saana maxaa u ciqaabaysaa waxaan ma fiicna sababtoo shaqa ayay ii raadinaysaa marka iska daa. Nicola ayaa waxay ku tiri ma saaxiibay waradii iska daa albaabkan iska furan ayaa waxaan doonaynaa lacag inaan ka daldalanno naagtana lacag ayaan weydiinayaa sidaas ayaan lacag u helayaa ninkeedana sidaas ayaa uga adeegsanayaa marka iska daa. Saarana waxay tiri okay saaxiib bal wuu arki doonaa. subaxiga markii la gaaro qareenadii ayaa waxay la soo xiriirtay Nicola waxayna ku tiri gabadheedii horta iga raali noqo waa ogaaday ninkeyga inuu wax walba ka dambeeyey laakiin aniga ayaa arrinkiisa booliska gudbinaya tan kalena waan iska furayaa. Nicola ayaana waxay ku tiri ma isdaji horta ugu horreyn ninkaada dhegayso sababtuu falka u sameeyey wax walba soogow kadibna igu soo jawaab celi. laakiin waxay tiri aniga ma doonaya inaan warkiisa dhegaysto sababtoo wax walba iska cadyihiin. Nicola ayaan xilligaas waxa ay ku qancisay inay bal ninkeeda ay dhegaysato bal maxaa u dhahaysa arrinka waa waxalisya maa sida u gudbig. si kastaba ahaatee qareenkii xilligaasi way aqbashay kadibna waxay go'aan ku gaartay bal ninkeeda inay la fadhiisato si bal wax badan u ogaato. gurigeeda ayaan xilligaasi ku soo laabatay. guriga xilligaasi waxaa ku sugnay ninkii Antonihay isagoo xilligaasi murugaysan doonayana guriga inuu ka baxo maadaama xaaskiisa furan ay ka codsatay ayayada guriga ku soo laabatay. kadibna xilligaasi wuxuu isku dayey inuu gabadhii qanciyo isagoo doonaya inuu wax walba u sharxo. gabadhii ayaana waxay ku tiri maxaad doonaysaa inay shirahday saaxiibow wax walba way iska cadyihiin ma waxaad doonaysaa aniga hadalkaan maalin ayaan dhegaysto. markaasuu waxa uu ku yidhi roortii dhegayso marka wax kuu sharxa leh aniga ii fahan. iidina waxay ku tiri okay soo daa maxaad doonaysaa inay sheegto. isagana waxa uu ku yidhi horta falkaas waa u dhacay laakiin aniga ma aana geysan. kadib ay ku tiri okay yaa geystay ii sheeg. isagana waxa uu ku yidhi walaalkay yaa geystay oo waxaa jira wiil aniga ii eg si aan dhacdadan u fahanno bal dib aan u laabanno. habeenada ka mid ah waxay soo raacay Antonio weliba walaalkiisa. Antonio walaalkiisa ayaana xilligaasi waxa uu walaalkiisa ka dalbaday inuu baabuurkiisa ku caawiyo maadaama xilligaas Antonio baabuur uu haystay
baabuurka ayuuna walaalkiis ku soo qaaday wuxuuna xilligaas u sheegay inuu lacag ka soo qaadanayo lacagtii ayuuna xilligaasi walaalkiis u soo raacay si uu meesha uu doonayo lacagtiisa uga soo qaato kadibna walaalkiisa nin gangster u ahaye wuxuu xilligaas u yimid gabadhii yarta ee Saara aabaheeda kadibna guriga ayuu u soo galay lacagtii wixii raba ayuu ka soo qaatay laakiin walaalkii meesha ayuu ku soo daahay anigana walaalkii waa ka nahay kadibna waxaan go'aansaday bal inaan baabuurkan ka soo dego si aan isaga u soo fiiriyo anigana waa soo baxay guriga ayaan gudaha u soo galay laakiin meesha waxaan ku arkay waxaan aad uga nahay waxaan arkay gabadhii yarta aabaheeda oo dhulka yaalla anigana waan ka nahay sidaasoo kale bastoolada ayaa meesha tiilay markaas iyo hadalka waxaa ka soo dhex gashay qareenka wixii ku tidhi okay see bastoolada gacantaada u soo gashay markaas iyo waxa uu ku yidhi bastoolada dhulka ayay tiilay waxaan ka cabsaday walaalkay tixraac inuu yeesho anigana sidaa darteedna bastoolada ayaa meesha ka soo qaaday marka anagoo arrinkaas sidaas uu yahay walaalkiina meeshii ka soo kaxeeyey kana murugaysan yahay arrinka sidaas ku dhabi laakiin arrinku wuxuu isbedelay maalin maalmaha ka mid anoo shaqadeeda jooga ayaa laysoo wacay gabar ayaana xilligaas waxay igu tiri haddii aadna lacag bixin arrinkani booliska ayaan kula wadaagayaa marka aniga arrinkan wax luga kuma lihi walaalkay ayaa geystay maantana ciqaabtiisa aniga ayaa maraya dooyaradda ayaa xilligaasi tiri hadda ayaan gartay laakiin maxaad hore igu sheegi weysa in adiga wiil walaal lahayd isagana wuxuu yidhi aniga kumaana sheegin maadaama isaga gaangistr uu yahay sidaas ayaan arrinkaaga qariyey haddana gabadhaani mar walba ay soo wadaa lacag iyo inay weydiisaa anigana kama diidi kariye lacagta waan iska siinayey sababtoo waxaan ka cabsanayey inaan arrinkan booliska sidaas ay faraha ula soo galaan marka waan ku baryahay ga tegin aniga intaas ayaan doonay inaan kuu sheego murugada maalmahan aan ku jirana intaas ayay ahayd waxaa kaloo ku caddaynaya aniga inaan arrinkan beryahan ka ahay marka waan ku faryahay jaceylka ifaan dooyaradda ayaana xilligaasi tiri waan ku fahmay laakiin ku weydiiyey gabadhaasi mataqan adiga mar walba ku soo wacaysaa isagiina wuxuu yidhi xagee ka aqoonayaa mar walba waa ay soo wacdaa lacag ayay inay weydiisaa waxayna igu hanjabtaa inay booliska arrinkii u gudbinayso marka sidaa darteed ayaa murugada ku jira laakiin iyagoo xilligaasi meeshii ku sheekaysanaya ayaa ninkii mobilkii soo wacay yaa soo wacaya isleedahay waa niklor xilligaasna waxay ku jawra ay dhegayso arrinkaaga ayaan haaskaada la wadaagayaa haddii aadna lacag 20 milyan oo neera aadna bixin isagiina waxa uu xilligaasi akadis haaskiisa waxayna ku tiri iyadoo baaqaysiyaa waayo isagiina isla markii waxa uu ku yidhi waa gabadhii kadibna waxay ku tiri okay waay arrinka si aan u xallibna gabadha meel ku ballami isagiina wuu ka aqbal wuxuuna ku yidhi meel heblaayo imaw halkaas ayaan lacagta kuu keenayaa areenkii ayaana xilligaasi booliska la xiriirtay arrinkiina waa ay wargelisay niklo isla markiina meeshii lagu ballamiyey ayay aaday laakiin goortii sidaas meesha tagtaba booliska ayay ku sugayeen isla markiina waa ay soo qabteen niklo markaas waxay bilowday inay jarays waxayna tiri maxaa dhacay sidina waxa la yidhi wax walba markii meeshii la taga xabsiga ayaa laga wada hadlaan soo wad sidina waa la soo kaxiyey kadibna saldhigii ayaa la keenay waxaana la yidhi walaalay hadda wax walba iska caddeey wax walba waa ay kugu cad yihiin iyadii warwareeg dheer kadib ugu dambeyntii waxay qareetay wax walba iyo weliba inay waxaasi samaynaysay laakiin waxay tiri si uu arrinka uu meel fiican u gaaro aniga keliya arrinkaas ma aana samayne oo saaxiibadeyda Saara taasoo ah gabadha aabaheeda laga dilay ayaa falkigula jirtay xilligaas meesha waxaa joogtay qareenkii kadibna waxay tiri okay Saara tan guriga ka shaqaysa maano ayay ku tiri taas waaye oo si camal markaas la yidhi iska daa bools ayaan isla markiiba loo diray Saaradii xilligaasi shaqadii la sii rabana iyadana saldhig ayaa laga soo xadiriyey labadana xilligaasi waxaa loo gudbiyey maxkamadii sare isla markiina sidaas oo kale waxaa la soo xiray ninkii kale ee falka geystay ee Anthony walaalkiis yahay isaga xabsidaan ayaa lagu xukumay maadaama wax walba iska xadaayeen walaalkiisna xilligaas oo ku cadeeyey waxaa ku saaray Saara iyo weliba gabadhii kale Niklo iyagana labadooda waxaa lagu xukumay xabsi 5 bilood laakiin waxaa kale sidaas oo kale loogu daray inay bixiyaan dhammaan lacagihii ninkaas ay ka qaateen maadaama qalad weyn ay geysteen arrinkoodiina halkaas ayaa lagu soo xalliyey qareenkii iyo weliba xaaskiisana mar kale ay dib u midoobeen goortay maxkamad dib u soo dhaawatay ayay guriga dib isugu soo laabteen iyagoo halkaasi ku samaystay xalfad yar oo raaligelina sheekadiina asxaabi halkaas ayay ku soo dhammaatay haddaba waxaan rajeynayaa cashar inaad ka barato sheekadani su'aal kale aan kugu dare bal haddii aad taagnaanayd booska Niklos saaxiibadaada Saara ma ku dhiirigelineed inay ninkaasi lacag ka qaato mise waxaad dhileed walaalay aabaha cadaalad u raadiyo saldhig iska xaadiri fikirkaada koontiga nagula wadaag muuqaalka like saar kanaalka subscribe dhoo sidinka noocan ka haddaa jeceshiina koontiga nagula wadaaga si aan u soo badino walaalkiina barqadooni leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.